muhiimadda ay leedahay diiwaangelinta madaniga ah waa in ay saldhig u tahay tiirarka horumarka ummadda gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha bulshada iyo amnigaba iyadoo laga ambaqaadayo in diiwaangelinta madaniga ay gundhig u tahay marjiciyadda asaasiga ee muwaadinka laga bilaabo marka uu dhasho ilaa uu ka geeriyoodo oo ay ku jirto warqadda dhalashada kaarka aqoonsiga shahaadada guurka shahaadada furiinka kaarka qoyska iyo shahaadada dhimashada waxaa jira oo suugaanta Soomaaliyeed ku jirta hees ereyadiisa uu lahaa Allah u naxariistay abwaan Sulub Cumar Axmed oo ay ku luqeeyeen xasan aadan samatar iyo Allah u naxariistay Xaliimo Khaliif Magool heestaas waxay leedahay gabar yahay war xiiso leh oo nacas xusuusnayn xuubka aan ka qaadee dawlad xor ah inaan nahay dadkeennuba xisaabnayn oo xoolaheenniyo dadkeennuba xisaabnayn xaq alliya madowba marka waxay leedahay maya wuxuu leeyahay xaddiga kow dadkeenna waa tirada guud intee xaas la koriyaa yaa xaas leh intee xoog shaqeeyaa leh dhalinyarada shaqaysaa waa imisa intee xaraf tacliin dhigan imisa waxbarataa loola jeedaa intee baa xanuun qaba yaa xanuunsan oo isbitaallada taga imisa xabaal galay dadka dhintay sheegaysaa intee xayiya oo nool intii soo hartay intee xarun magaalooyinka yaa degan intee baa miyiga xula imisa miyiga degan ayaguna tirkoobka malay haddii aan xog loo hayn sidee baa loo xanaanayn ayuu su'aal way dheer tahay kadibna xoolihii baa la gelayaa arrintaasi marka heestaasi waxay soo koobaysaaba yacni sida loogu baahan yahay tirakoobka iyo wax in la diiwaangeliyo iyo diiwaangelinta madaniga maanta inta badan dadyoga ku nool dalkeena waxa ay dhashaan haddana ay dhintaan iyagoo aanan haba yaraatee gelin wax diiwaangelin rasmi ah dawladdana aan u xisaabnayn waana dhibaato aad qiyaasi kartaan intay leeg tahay haddaba nidaamka daddhigista ee ka shaqeeya meelaha qaar dalka oo aan isku xirnayn dhacdooyinka muhiimka ah ee dadka aan lagu diiwaangelin isla markaana ay dhacaan lagama filayo inuu ka jawaabo su'aalahaas xukuumadda federaalka Soomaaliya siyaasaddii ay ansixisay Agoosto 2021 oo aad haysatiin dhammaantiin waxa ay hagaysaa sidii dalkan looga dhaqangelin lahaa nidaam diiwaangelin ka jawaabi kara su'aalihii fanaaniintu isweydiiyeen sanad kadib markii la ansixiyay siyaasaddan horumar fiican ayaa laga sameeyay hirgelinteeda koox-hawleedka farsamo ee siyaasaddu dhisaysana waxa uu qabtay shaqo badan oo ay ugu dambeysay kulankii dhacay bilowgii bishii Oktoobar ee loogu gobol xaariyay kulankii guddiga hagidda diiwaangelinta madaniga waa kulankan weyn oo heer wasiiro iyo agaasimayaasha guud guddiga hagidda diiwaangelinta madaniga iyo statistikada muhiimka oo ka kooban dhammaan hoggaanka sare ee hay'adaha istiraatiijiga u ah hirgelinta nidaamka diiwaangelinta madaniga iyo statistikada muhiimka waxaa ka mid ah guddigaas wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta wasaaradda caafimaadka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka wasaaradda diinta iyo awqaafta wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha hay'adda statistikada qaranka hay'adda socdaalka iyo jinsiyada hay'adda diiwaangelinta aqoonsiga dadweynaha wasaaradaha arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada oo dhan iyo gobolka Banaadir maamulka gobolka Banaadir intuba hadda badankoodu way joogaan qaarna way soo socdaan waana kulankii koowaad oo qabsooma iyo daneeyayaasha caalamiga ah ee taageera ee halkan isugu yimid waxa maanta uu u fadhiyaa inuu arko wixii qabsoomay tilmaamo meesha la aadayo keenana dhaqaalihii loo baahnaa
waxaa intaa dheer in sharciga gundhiga u noqon lahaa howlahan uu marayo marxalad gabagaba ah sidoo kalena la diyaariyay habraacyadii loo mari lahaa howlaha diiwaangelinta madaniga sida dhalashada guurka furiinka iyo dhimashada oo waafaqsan siyaasadda qaran ee diiwaangelinta madaniga iyo waliba sidii loo midayn lahaa noocyada caddaymaha shahaadooyinka iyo foomamka xog ururinta waxaana aan doonaynaa in sida ugu dhaqsaha badan howlahaasi lagu dhammaystiro hirgelinta nidaamka diiwaangelinta madaniga ah oo casri ah ayaa ka caawin doona dowladda iyo dadweynaha Soomaaliyeed bixinta iyo helidda adeegyo hufan nabad iyo xasilooni baahsan dalka Soomaaliyana uu la jaanqaadi lahaa dalalka kale ee daafaca caalamka sanadka soo socda waxaan rajaynaynaa inaan helno barnaamijkii digitalka ahaa ee hawshan fududeyn lahaa hirgelinteeda waxaan rajaynaynaa in hirgelinta nidaamka casriga ah lagu bilaabo ugu yaraan 30 degmo oo dalka ka mid ah oo tijaabo ay noqdaan kadibna haddii tijaabadaas lagu guuleysto in horey looga socdo waxaan u mahadcelinaynaa guddiga farsamada ee fulinta siyaasadda qaran dadaalkii ay muddada sanadka ku bixiyeen isku xirka hay'adaha shaqadan ay khusayso iyo diyaarinta shuruucdii iyo qorshayaashii laga maarmaanka u ahaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin shirkuna noo